kadib markii uu Nabi Ibraahim calayhi salaam ka qorsaday aabihiisa, waxa uu go'aansaday inuu diinta gaarsiiyo dhammaan qoomkiisa. Maalin maalmaha ka mid ah waxa uu la kulmay qoomkiisa oo u sujuudsan sanamyo. Kadibna waxa uu weydiiyey, waa maxay tamaasiishan aad u sujuudsan tihiin? Waxayna qoomkiisa uga jawaabeen inay ka dhaxleen aabayaashood oo ay sidaa u caabudayaan. Nabi Ibraahim calayhi salaam isagoo aad u dhiiran ayuu ku yiri, idinka iyo aabayaashiinba waxaad ku sugan tihiin baadi iyo khasaare cad. Waxay uga jawaabeen, Ibraahimow, ma xaq baad noola timid mise waad iska ciyaaraysaa? Waxa uu ku yidhi aabihiin, waa Rabbiga samooyinka iyo dhulkaba, aniguna markhaati baan ka ahay. Nabi Ibraahim calayhi salaam waxa uu ballan qaaday inuu burburin doono sanamyadan oo ay qoomkiisa caabudayaan. Maalintii dambe ayay qoomkiisa u baxeen ciid si ay u soo dabaaldegaan, waxayna ka tageen sanamyadii oo aan cid ilaalisan lahayn. Nabi Ibraahim calayhi salaam oo keliya ayaa ku hadhay magaalada. Kadibna waxa uu u tagay sanamyadii, waxa uuna weydiiyey inay cunaan cuntada iyo khudaarta la hordhigay. Sanamyadii wax falcelin ah ma aysan samaynin, cuntadii hortaalayna ma aysan cunin. Markaas buu Nabi Ibraahim calayhi salaam soo qaatay faas. Kadibna waxa uu burburiyey sanamyadii markii laga reebo koodii ugu weynaa. Dabadeedna faastii ayuu qoorta u suray sanamkii weynaa. Qoomkiisa markay soo noqdeen waxay la kulmeen mucjisadan, waxayna isweydiiyeen in lagu soo duulay iyo in kale. Balse markiiba koox qoomka ka tirsan ayaa tidhi, waxaan maqalnay wiil yar oo ceebeeyey sanamyadan, waxaana la dhahaa Ibraahim. Kadibna waxay soo qabteen Nabi Ibraahim calayhi salaam oo ku dhaheen, ma adiga ayaa sanamyada burburiyey? Nabi Ibraahim calayhi salaam waxa uu ugu jawaabay, waxaad weydiisan sanamka weyn oo haddii uu awood u leeyahay in uu hadlo. Durbadiiba halkaas waxay ka garteen inaanu sanamka hadlayn. Kadibna ayaga ayaa isku noqday, waxayna isku dhaheen, waxaad tihiin daalimiin. Hase ahaatee waxay ku adkaysteen inay u gargaarayaan sanamyadooda. Waxayna go'aansadeen in la gubo Nabi Ibraahim calayhi salaam. Qof kasta oo qoomkiisa ka mid ah waxa uu soo aruuriyey xaabo si loogu gubo Ibraahim calayhi salaam. Dab aad u daran ayay shideen, dabkaas oo xitaa shimbiraha hawada duulaya ay la soo dhacayaan kuleel iyo hanfi daraaddeed. Waxaa lagu xidhxidhay Nabi Ibraahim calayhi salaam xarko. Kadibna waxaa lagu tuuray wiish, sababtoo ah looma dhawaan karin dabka kuleel dartiis. Markii lagu tuuray Nabi Ibraahim calayhi salaam dabkii, waxa uu la kulmay malakul Jibriil. Waxa uuna weydiiyey inuu caawimaad uga baahan yahay, laakiin Nabi Ibraahim calayhi salaam waxa uu ku yidhi, adigu xaajo iyo caawimaad midna kaagama baahni, oo Eebbahay subxaanahu wa tacaala ayaan uga baahanahay inuu iga kor yeelo dhagarta gaalada. Dabkii ayaa lagu tuuray Nabi Ibraahim. Markaas ayuu Eebbe subxaanahu wa tacaala faray in dabku uu noqdo baraf. Kadibna sidaa uu ku nabadgeliyo Nabi Ibraahim calayhi salaam. Dabkii waxa uu qaatay amarka Eebbe subxaanahu wa tacaala, waxa uuna nabadgeliyey Nabi Ibraahim calayhi salaam. Waana mid ka mid ah mucjisooyinka ka yimid xagga Eebbe subxaanahu wa tacaala oo la siiyey Nabi Ibraahim calayhi salaam. Sidaas ayaana lagaga badbaadiyey dhagartii gaalada iyo dabkii weynaa. Inkasta oo ay ahayd daliil lagu garto Eebbaha weyn, haddana qoomkiisa ma aysan rumayn Nabi Ibraahim calayhi salaam. Waxaa rumeeyey oo keliya wiilkii uu adeerka u ahaa ee Nabi Luut iyo xaaskiisa Saara. La soco qaybta xigta. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.